madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu xilki ka qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Daadmareer Axmed Diriye Cabdilaahi iyo gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolkaasi Daadmareer Maxamed Cabdilaahi Cilmi Xujaale. madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku iri xilka qaadista mas'uuliyiintaasi mudan ayaa sida aad la socotaan xilalka ayay sunnihiisu tahay inuu meerto noqdo oo loo dhiibo hadba cidii hanan karta. sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaada xilalkii aad hayseen. haddaba waxaan idinka rajaynayaa inaad si niyad samiya ugu wareejin doontaan mas-uuliyiinta cusub aan u soo magacaabay xilalka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareer. madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu magacaabay gudoomiye cusub iyo gudoomiye ku-xigeen, waxaanay wareegtada madaxweynaha Soomaaliland ee magacaabida gudoomiyaha cusub ee gobolka Daadmareer iyo ku-xigeenkiisa uu ku yiri madaxweynuhu markaan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoonta kartidooda iyo waaya aragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan markaan sameeyay la tashi waxaan go'aansaday ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliland in aan mas'uuliyiintan u magacaabo xilalkan. waxaanu gudoomiyaha gobolka Daadmareer u magacaabay madaxweynaha Soomaaliland inuu noqdo Nuur Cismaan Guuleed, halka uu gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareerna u magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Maxamed Cali Axmed Saki Daahir Xasan warbaahinta qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.